بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إلهي ما تسكال تبارك وتعالى إن كل مية إن صورة قليل كلن كان عنوان كيسا ومحاضرة عنوان كيد وحوي سيده هريب الله إعلامي فقه المصائب. مصائبتا إنه عيسى هي فهم كذا نسيفي عن لو فهمه وفهم كذا سنقول قلوا عنن سخلدني هذا نفهم صوت محاضرة كانت وحي هيد مناسبة وحوية ويهن وحا عالمك كل حشرة oo aad u faafaya oo qayladiisu ay meel walba qabsatay cudurkan ay ku magacaabeen fayraska corona oo ilaa dhowr kun dilay boqolaal kun wax ka siyaasadna ku dhacay xanuunkaas ama caabuqaas markuu soo kordhay ayay culimadu ka hadleen mid محاضرة كجيدية مid خطبة كجهالله مid كلمة كجيدية عالم الإسلامي عربي عجم ولا جهال وحلو جهالله علماء وجهالين وجد نظر كشريعة شريعة القرآن كي السنة سيدي أي ودجان مصائبته عذر رضا حوادث تدعية sidii quraanka iyo sunnadu u taxliiliyeen aba u sheegeen bay culimadu uga hadleen kadib waxa ka dhalatay kacdoon ay hogaaminayaan dad isku jira dad fahamku la qalloocday muslimiina iyo kuwa mulxidiin oo diin lawayaal ah oo diin lahayn kacdoonkaasi wuxuu ku wajahan yahay in culimada arrinka ka hadashay la weeraro lagu tilmaamo inay sax u fahansaneen la aflagaadeeyo la yiraahdo waa jaahiliin la yiraahdo waxayna garanayeen ba ka hadlayaan bal in wadaadadii culimada la dhaafo ilaahi la caayaba wal ciyaadu billah waliba dad Soomaali ah yaa ilaahi ula baxay inay caayaan way ku jeesjeesaan aflagaadeeyaan marka meesha waxa ka soo baxday marka inay muhiim tahay in mas'aladan ruuxogaas sidii ka xeel dheer inaan isu dul taagno مثلا دان تصاليال ka soo qaadano Soomaalida qoraalada ay sameeyaan commentiga ama tacliiqaadka ama qaar mowduuc ahaan uga hadlayba mid baa wuxuu leeyahay magaceeda inaan sheego muhiim aha wuxuu leeyahay waxa aad looga argagaxaa culimada ka hadashay mowduucan waa fayraska corona hadday Carabi yihiin iyo hadday Soomaali yihiin waxay u hadlayaan buu leeyahay طريقة ama qaab aan cilmi ahayn oo maxay leeyihiin ilaahay baa dadka ka argoosanaya waxay leeyihiin ilaahay baa dadkii laynaya waxay leeyihiin ilaahay baa dadkii ku ciqaabaya hadallada noocaas oo kaleeta waa hadallo aan cilmi ku salaysanayn wuxuu leeyahay xanuunkani waa xanuun la yaqaan sidoo ku dhasho bacteria inuu yahay noocu ka sii yahay waa wax la garanayo culimadii ku takhasustay cilmiga bakteeriyaadka iyo biology-ga waxay bilaabeen inay raadiyaan daawooyinkiisa si looga hortago talaalkiisa daawadiisa inay raadiyaan isla markaana waxa suurtagal ah weeyii in sidii cudurradii horeba looga hortagay kana in looga hortago oo daawo loo helo marka cudur laga hortagi karo oo sababtiisa la garanayo culimadiina hadda daawo u raadinayaan in daawo loo helana ay suurtagal tahay سيبادو ليدهن إلهي بقى الضمادة كوحي قابي سيبادو ليدهن إلهي بقى الضمادة كجار قوسني سيبادو ليدهن إلهي بقى الضمادة كليني
waxba meesha kuma haysaan wadadow halkaasuu ka buskicay wuxuu ku sii daray su-aasha muhiimka waxa weeye annaga culimada haddaan nahay ma aha inaan laablakac ku hadalno mowduuc khadhaadh oo kanoo kale ah inaynu iska hadalno cilmi la'aan ma ah annagoon u noqonin dadkii khubarada ah ee arrintan khubarada u ahaa sida qur-aankuba in amrayo fas'al bihi khabiiran walaa yunabbi'uka midlu khabiir sida qur-aankuba in amrayo innagoon khubaradii u noqonin inaan laablakac ku hadalnaay sax maaha inaan xujo la'aan iyo cilmaanaan iska hadalnana maaha inaan iska dhaxno dadkii baa ilaahay laynaya oon iska dhaxno dadkii baa ilaahay u cadhooday oo aan dhahno ilaahay baa dadkii ku ciqaabahaya hadallada noocaas oo kale looma baahna ninkaasi aayaduu daliilinaya anuma aqaano laakiin nin waxoogaa uun diinta wax ka garanayo u muuqda mushkiladiisa wuxuu diidan yahay oo ka dagaalamaya in la yidhaahdo musiibadan iyo cudurkan waa cuquubo ilaahay addoommadiisa ku ciqaabayo dhakhaatiirtii baaba garanaysa see buu cuquubo ku yahay buu taagan yahay ayib waa maagay marka culimadii buu aada u maagay oo uu ku sheegay inay aqoon darro iyo jahli hayo wuxuu intaa ku sii daray haddii cudurku cuquubo yah oo argoos ilaahay ah dadka ilaahay u noole diinta u dadaalaya cibaadada badan ee saalixiinta ah ayaa cudurrada adduunka ugu xunxun ku dhacayaan ayib ma la ciqaabay buu leeyahay kuwaas noocaas oo kale waa shubha waa xanuun buu leeyahay waxani midka masaajidka ku jirana waa ku dhaca midka baarka khamrada ku jirana waa ku dhaca ayib waa kelimo sax waa kelimo sax dadka waa ku wada dhaca laakiin cuquubo ilaahay ma yahay mise ma aha ma yahay wax ka dhashay bini aadamka falalkiisa oo dembi ay galeen ka dhashay mise waa wax iska dhashay ayib kaasi saasuu u dooday mid kale wuxuu yidhi waa soomaali isagana wadaadku waa wadaad arrinta ka hadla wadaadku wuxuu yidhi caqliga naga ma ixtiraamin nagamana xishoonin hadduu yahay cudurkani wax ilaahay soo diray muxuu dadka xajka iyo cumrada ugu diidayaa buuri ilaahay wuxuu soo diray oo addoommada ku soo diray oo ciidan ka soo dhigtay see buu xajkii iyo cumradii ugu diiday dadka war wadaaddow caqliganaga ha ku ciyaarina oo caqliganaga ka xishooda waa soomaali baa saa u hadla waa mid kale mid kaloo saddexaadna wuxuu leeyahay caqiidada dadka iyo camalkooda in cudurkan lagu xidhayo waa khalad maxaa yeelay cudurradu gaalo iyo muslimba way asiibaan beled kastana waa ku dhacaan xataa beledka ilaahay xurmada leh makuuba ku dhacayaaba marka maxaa gaaluu ku dhacayaa iyo gaaluu ka bilowday iyo dadka macaasidooda iyo kufrigooda iyo xageed ka keentay warkaas halkaana mid kale ka buskixi mid kale wuxuu yidhi shubkeena wuxuu yidhi daacuunkii cumwaas daacuun cumwaas waa sanadkii 8 waxaan malay hijriga inuu ahaa daacuun ka dhacay shaam xilligii cumar muslimiinta u talinay oo dad aad u fara badan oo muslimiina laayay saxaabo badan ku dhinteen daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu waliba xilligii baytul maqdis la furtay buu ahaa daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu yidhi ilaahay inuu muslimiinta u cadhooday muslimiin buu laayay shubhadaas uu keenay mid kaloo shanaad wuxuu yidhi war waxan waa cudure ka hortag iyo dadaal buu u baahan yahay wax walba diinta xaggeeda looma tiiriyo buu yidhi ya waxan wuxuu u baahan yahay in la raadiyo qaabkii dadka looga hortagi lahaa loo daaweyn lahaa laakiin wax walba haddaad diinta salka u saartaan see wax idinka yidhi mid kale wuxuu yidhi khatiibka arrinta ka hadlaya mushkiladiisu waxa weeye diinta unbuu garanayaa laakiin culumta kale aqoon uma laha halkaasaa laga soo galay mid kaleeto wuxuu yidhi oo ilaahay markuu addoommadiisa ciqaabayo ma dagaal buu kula jiraa addoommadiisuu abuurtay miyuu la dagaalamaya mar waxaas cilmi la'aan waay ma intuu xanuun yar sameeyo yuu haddana dirsanaya addoommada ku dirsanaya miya isagoo adduunka dhanba hal mar halaagi kara muxuu uga baahan yahay inuu dirsado ciidan yar virus inuu dirsado muxuu uga baahan yahay waa soomaali kale mid kale wuxuu leeyahay oo ilaahay ma ciidan kale u waayay
ma ciidan corona dhaamu ilaahay waayay buu leeyahay markuu corona soo dirsanayo waa Soomaali kale wuxuu ku daray dawladuhu hadday iyo bini aadamku hadday daawo u helaan xanuunka oo ka adkaadaan soo macnaheedu ma aha ilaahay ciidankiisa baa laga adkaada ya haddii daawo loo helo soo ilaahay ciidankiisa lama jabinin buu waa mid kale oo Soomaali oo jeesjeesaya waa kuwa iyagu kelimatu kufri oo cad oo ilaahay caayaya af laga deynay hadalkooda ma soo goorin karo anida kaga kaaftoomo wararkaas waxa qorayad arkaysaan waa Soomaali qaar baa waxay ilaahay la iska celiyo ilaahay dagaalka inuu wali jiraan iska celino Soomaali gaala ka soo dhaxbax Soomaali Kirishta baa ka soo dhaxbaxay mulxidiin baa ka soo baxay kuwa aan diin lahayn baa ka soo baxay kuwa aan ilaahay rumaysnayn baa ka soo baxay Soomaali boqolkiiba boqol waa muslimtaynu taagnaan jirnay warka laga daba iimaan هذا السوشيال ميديا هي واحد القرية هي كومنتيجا هي فرقة هي واحد هذا يعني لا صعتان أو تفهمي كرتانين بدنا صومالي كمذا إن الدين توهر كذا قاتشير مركز سيدي هو أردت معه ولا السوق عليه وحاود الرامد كريستان بان نهاي أنا وكريستان بانو نهاي أنا إله دتك عذاب يمر ميسني أنا ودتك وأن حريصنا أنا ودتك كي حتى ندب وأدعيناه إله القرآن كور رمي يدتك عذاب هياي إله يرونتها معه إله بايبل كشيء حريص تبدل يعني أنا أقول رمي سنة كاسة إله بايبل لما يقان القرآن لما يقان حتى بايبل ما يقان وحوجا أفكار لوج اللي يدور كلمة لكن حتى بايبل كما يقان ولا كريستيان كوسنا أقول ولا تاريخ ذي كريستيان كوسنا أقول كريستيان محي أدون كوسا صمية اسكدا في تاريخ ذي هراء حروب الصليبية إيو مجازيرتي جيستين إيو اسكدا عصر كان هدا أنشوا كريستيان محي جيستين أدون قميسي يجي قلبيت كا كان يسدوا لسعود ما أهين مياه كريستيان ما أهين الدونك سيجي أفريقيان كي بدها الجدبين إيه مرايكن يبيلوا بلا جيست يا سميني يا كريستيان بس سميني الدون كيان نيوكلير كوبا بإيه سو كريستيان ما هين وقتين هذا أنشوفنا سربيا يا بابي سو كريستيان ما عالم الإسلامي يا باشا الكوكراعي سو كريستيان ما وأنو نحريس بدلنا هايو أنا حتى كينا خلافة ودعينا هذا روا أنت كنيسة لقاقل قيمة واحد لكن كريستيان التاريخ دي سمت قاني ولا بايبل بعد قرنين مساكين تصومالي ذا كريستيان كشيء قالوا بين شيكتنا مشكلة ده أقوى وحوي لقمات بيقالوا بينه لكن حتى الدين تيجالين ما قرنايا هذه إشكاليته مركميد نوعاسة ترى إستجانا إلهي عاي الدين ترى عاي طيب أنت سي وأسباب تكنتي إن الموضوع عن كهذا الله حكيني لأنه علماء سي موضوع وجهلين أيا واحد للسي إن إلهنا لجو حد جدبه علماء دين لجو حد جدبه دين تنا لجو حد جدبه لا بقى حد ويسان هري وشيء قارن دين لهين يكون مسلمين لكن مسألة ذو قلوعتي إن المركب حقا يستدرو تاجنون عدة إنه وقت هو كوبية هي لكن وحنا سكوده إن شاء الله تعالى إن السوق كوبه مسألة مركب كهلا إنه مصائب ترى عيسى سيد القرآن كي يصنده أيوقع حين وحي هوستك تا مبدأ اللي يلاحظه مبدأ القضاء والقدر إلا الرميانة وحي كم يتاهي تيررك إيمانك اللي حدا ميت كم يدوه شنت تير الإيمان ميت كم يدوه حويان وتؤمن بالقدر خيره وشره إن قدر كالرميسه يوحو إلهي أدون كان قرشي يوحو الصمين إن أدرميس قضاها يقدرك كيس كوفي عن يكيس كوحمبا طيب صحابتنا ذاتك مبدأ بيني ويكبر النقون شيران وحن إجماع الإسلام أقول هاي مبدأ الصلاحان روحي بيني إنوصل المسلمين هل الرميو الإيمان بالقضاء والقدر محل جور هذا وحل جور هذا أفر الرماد إن أدرميس كو وحكستو أو دعي أمر دعي دونا إنه إلهي علمي جيس كوهر مريو إلهي هريو أوجا إن أدرميس سو قدما
إن الله بكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقضب كلا بعدي وحويان وحول بور دعية أنتو صندقين ألا مركو أوغادي كدي بهوري أسي أوغا وقري هدنا وحول بور دعية وسي قريه ووحا لغو قري الديوان كوين اللوح المحفوظ كي وحول بكو قريهين أيضا وحا شيغيسا أيضا فربضا أيدي هذا اللي نقول تشيني مغرب كيف كمده ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنت نان أبو رمبا كتاب بيكسي قريب سومارت وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وحلولك دحديس كمقا أما الصبادة كمقا مجر إلا ميلبك قرين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمامك وكتاب مركا وحو البوا قرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر قاتك عيسى مركا إلهي هرو وقاد وحكسته وأنا قري سو قضب كل هذا ما قضب كالصدحادي وحوي شيء كستو أدونك كدعيا الله تبارك وتعالى دوني دي سوق دعيا المشيئة والإرادة شيء صن إلهي دونين كون كيسا كما دعي كرو وحكستا أو دعيا إلهي وحكو دعيا قدرة ديسا دونيتان كيسا إرادة ديسا وحسن دونين ما دعي كري وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إلا أن يشاء ربي وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم يعني مشيئة إلهي الدوني التيسة وحكا أصبح يا مجرو ومرتبط الصدحات سوما مرتبط أفراد إيمانك قضاء وقدر رمي مركا اللي قوليه مرتبط أفراد وحوي إن إلهي تبارك وتعالى أويهي متك وحو الباء أبو رح هرو أوغاديكو وقري اللبا مركو دعي ربنا ودون إنو دعو صدح مركا أفرادنا إساقا أبو رسمي وحسن إلهي السمينين كون كمتشرو من تشري كرو صوما أما هالنقض الضوامضة أما الضوامضة أفعاشه ذا وحي السمينين أنا هالنقض كل إلهي بابور الله خالق الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إذن كإستقى إذن أبوري عمل كيننا إذن كإستقى أبوري مركا ومرتبط الخلق واحد مركا اللي قولي هاي قضاها إلهي قدر كيس الرمي أفرتا مرتبا لقوضا أفرتاس وساس يسود بيالا رمي مركا تسيدا الرميسو وحوال بودعيا إن إلهي هوري أوغا إنو هوري أقري إنو إساقو الدوني إنو إساقو أبوري أهيسي وصوصاري مركا تسا الرميسو ملاها أتكفى إيدي سوحوية ثمرات وحواي مبدأ مركات رميسو نولش هذا وحي نقونيسا نولل إسود ليلتران نولل ميزاما واحد ويدينا مرق يسترس يعذر كوكمردو واحد هشينا كبر يسلوينا كوكمردو نعم كون الشكر بيكنسن واتكشكرين نقمك إيا مصائبتنا واتكشكرين واتكو صبري سيداس دراديد روحا مبدأ الرميسا نولشيسو ونولل يسود اللي تيرانو ميزاما واحد وانا معناها آيات اللوشة يقول ربي تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير محل مبدأ اللوشة لكي لا تأسوا على ما فاتكم waxaad sugayseen oo rabteen oo jeceshiin oo idin dhaafood weydeen inaydan u murgin hayla waxaad rabtay hadaad weydo waxa kaaga filan inaad tiraahdo soo ilaahay saa ugu matalgelin ma qornayn ha horu u qorna inaanan helin wakafa maxamed isugu dhibiba wala tafrahu bima ataakum
wuxuu idin siiyeyna inaydan ku kibrin hayl wuxuu ku siiyey hadaad ogtahay inuu isagu ku siiyey kuu qoray kuu qadaray asagu kuu abuuray horeyna waxaan u qornaayeen maxaad u kibriba xoog iyo xeeladaad sheegata ma jiro Soomaa ilaahay baa ku siiyey isaga qoray isaga qadaray kibir male marka kibirna male argagax iyo stressna male markaad mabda'a rumaysanto saas daraadeed waa mabda'a muslimiinta iyo mu'miniinta rumaysani xaalad kale kastoy ku sugan yihiin noloshoodu waa nolol degan waay nolol xasiloon waay nolol aan stress iyo wareer lahayn ka dhibanna waa sabraya ka barwaaqada haystana waa shukrinaya walaysa dalika illa lilmu'min mu'minkum ba iskale nabiga sallallahu alayhi wa sallam ومسألة مدة آيات كلا أي شيء يسور بالله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه روحي إله الرمية قلبك سوحنوننا يا أو تجدونه طيب الدواء أنون ما عذر الرضا عذر الرضا مصيبوين كإلهي كانوا كمد مين مس كمد ما مصيبوين كما كبحسين مسوا مصيبوين عذر الرضا مصيبوين كي كمدي طيب musiibooyinka miyay iska dhashaan mise cid kala dhalisa mise ilaahay baa dhaliya oo adoomada ku dira meesha wadaadada lagu haysto halka waa wadaadada waxa lagu haystaa maxaad u leedihiin musiibadan xanuunka ah ilaahay baa adoomada ku soo diray meeshaas lagu haystaa wadaadada طيب أما قاركود وحي ليهن إن لي يدهد وعيدا إلهي صدر وقلت قرآن الكريم كإله حكوش شيء السماوات كي يرنون الكبعيدا مدي سوين يتشوغان ولله جنود السماوات والأرض علماء وحي دهدان وجموع السماوات والأرض نولالك إيا السماوات كإسوغين تودي وحكو نحن نولودان عيدا إلهي واحد فلو سلط الله أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم بوي سمعاني هدي إلهي مخلوقات كيسا كأغير أغير ضعيف سن وعالم كإنتي سكلا كسا لدي لها واكعت كان إياه مركا معناه حلقة وذا وحول بإلهي بيؤه قانسيهن وحدو أمر سيو وأمر قادنا يعني إلهي أمر كيسا كوري ما كان مجر مركا ساوحي ليه وحكم إذا ملائكتا سماوات كتشوكتا وعيدا الله وحكم إذا تشينك إنسي قدول كتشوكا إيه غير كود طيب حديث باكرة علماء قارقود حسن أي كدغيان قارنا ضعف كشيغيان حديث كاسوح له لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم أي حهدلنا عيدا كإلهي ويناوي علماء ضعف بكشيغان من حيث المتن من حيث المعنى نضعف بيكون شيغانو وحيليهن لأنه أي حق إن لعنا لينو أقول هذا لا بالشيء ويقول للجورين لعنو كمدي طيب مركا إن إلهي تبارك وتعالى مصائب تنكسو دريا الضوامضة ويحقي سكا إيمانيا ويعقوبيهين قرآن كاقي حي مركو إلهي كهل لهي فرعون يقوم كيسي وحو الله يدي تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مركي لك رواية مضح أذيقين أيو إلهي وحكو صدر الطوفان ضادد يالروبب يالطبيلو أي إلهي قدري يا صدري فأرسلنا عليهم إلهي وحكو صدري وحكو صدري أيح بيروه دي دلقي وحول بكبابيه وحكو صدري قملك سوس كبالك إذا هذه قلب بيرها قلمية من شربة وهكذا وهن حشرات إلهي كو صدري وحكو صدري الضفادع وبالك اللي هذا رها قليو إلهي الرها كو صوف صحي الرها بقى لو عقابه لو صوف صحي وعيدا إلهي قليو وحو إلهي كو صدري إسلايقا ويوحا لو صدري ديك با لو صدري ديك با لو فصحي
آيات إلهي واي ولعد عدي لك لا دغدغي markii intaas oo dhan lagu soo diray kadib fastakbaru mayna waana qaadanina way isla weynaadeen way sii kibreen wa kaanu qawman mujrimiin marka yaa soo diray waxyaalahaas xasharaadku kamid yihiin ilaahay baa ku soo diray adoomadiisa ninkii la ilaahay ma soo dirino ama quraankaadan garanaynin oo jaahil baat ama mulhid quraanka macnihiisa diidan baat labada mid waay إلهي بقى دومده ku ciqaabo ku soo diray waxyaalahan cilmi darro ninka ku tilmaamay iyo laab la kac ninka ku tilmaamay yaa imma inuu jaahil iyo quraanka ka warhaynin yaa imma inuu quraanka macnihiisa inkirsan labada mid waay طيب الله soo diray masaa'ibto dhanna waa sidaasoo quraanka kariimka ilaahay wuxuu ka cabiray في سورة الأنعام مركو إلهي كهلي ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أمضى أيان حق هذا الرسول أدرنا النبي محمد هرتابا أمضى الرسول أدرنا طبعا الرسول شيء مركي بينيين ولا كيري ويض مضح هذيجان الله وحوله فأخذناهم بالبأساء بأس بنكو قبرني باسكم حويه علماء حيلي وفقرك ينولش حريرك الشا البأساء والضران وحيلي نكون فسريان الأسقام والعلل العارضة في الأجسام وحنون ذا وعذر ذا ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء نلش يلقوا فقري أسعارته كعادي السعر بر والضراء عذره لعلهم يتضرعون سيله وتضرعان يا كصدري يا صدري الله تبارك وتعالى قرآن كعديني طيب halka waxaynu marka kaga jawaabnay quraanka kariimka xadiista nabiga waa u tagi doonaa si cad wuxuu u qeexay masaa'ibta ku dhacaysa dhulka aadamaha ku dhacaysa noocay dooni ha noqotee ilaahay baa soo saliday ilaahay baa adoomada ku soo diray tabaaraka wa taala ilaahay baa abuuraya ilaahay baa salidaya ilaahay baa diraya ma wax iska dhaqaaqayo iska tasarrufaya ma waa wax ilaahay ku socda iraadadiisa iyo abuurkiisa iyo soo saarkiisa ku socda waa طيب qodobka inoogu xiga wuxuu yahay isagana u baahan inaynu ka jawaabno markuu ilaahay inuu soo saaray oo quraanku sugay masaa'ibtan dhacaysa haddana quraanku wuxuu isku xidhay musiibooyinkan dhacaya iyo aadamaha ficilkiisa musiibooyinkana inay ku imaanayaan sabab bini aadan khalad bini aadan galay macaasi iyo dunuub gaalnimo iyo ilhaad dambiyo in ay masaa'ibtani ku imaanayso sabab sanayso haddana quraanka qeexay sidaas daraadeed warkii ahaa ma dadka ilaahay la dagaalamaya muxuu ahay cudurradan cuquuba loo soo diray miya ilaahay baa dadka leeynay ilaahay baa ku ciqaabay warkaas cilmi kuma salaysan waa iska caadifad sax ma maxaa daliilu aayadaha quraanka aayada aad u fara badan waay waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir ما أصابكم من مصيبة وح الله وحي مصيبة إذن كل عض إذن كمر عضو وح كستو مصيبة إذن كل عي نوعي دونها أهات فبما كسبت أيديكم سببت وحوي وحي جعمه نشقيستين وحالت ما دين با السبب طيب أيدك الله وحلي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحي دبكو غاري مصيبه كوغو دعداي نفتادا سببها آيات كلا الله وحلي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم دقال كي وحد توماين مركي الله شبايو صحابة وحسوق قارين وسؤاشا التمد محي كو دعداي أن هذا الله وحلي كويري قل هو من عند أنفسكم نفتينا أكتيدا با شبكو كأهاد إذن كاس سبب صدي شبكا إذن قاري يعادو إنه ديب إذن قارسيو طيب وحكم إذا آيات ربي ليه أو يوبقهن بما كسبوا كوا بدل لغو هلاقيو
waxa loo halaagayo musawada ugu dhacayso wax weeye bima kasabu hadaa tiraahdo maya waxay kasbadeen ma aha markabkiiba motorkiiba ka halaabay washeeqo waxay kasbadeen ma aha waxa waa wax la fahmi karo markabkiiba motorkii ka halaabay cilad baa gashay cilad bay la halaagsameen ee ma aha dambi ay galeen ilaahi la halaagay ayada quraanna wada aqriisa sheekh baad iska dhigaysa shunu hada soo wax la yaab lama wax ajiib آيات كلا الله وحليه وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن تصبهم سيئة بما قدمت سببية بما قدمت واحد عمود دور مرصدين وحكم ذا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون آياتها معناها الشيء مركوي فربديهن كدران منه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون مصائبته إن عذاب تهينا أيضا ذا شيء صوما إلهي بعد ما ذكر عذابه كل ينيا وخلد من كيري أيضا حجي مري ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وحنودن سينينا عذاب كي سكيي ومتك الدنيا ده دون العذاب الأكبر عذاب كي وينا سكديس أما كي رابان ردن سينينا كي وينا سكديس لعلهم يرجعون سيوصل نقدان عذاب كل ردن سينيا سيوصل نقدان ألا عذاب كعبري ومصائب تكون عايز وبارها والضفانتا وعود الردى وقطرها وأنا بتقولي الردى مصائب تكون عايزة أيا لجودا العذاب الأدنى إلهي مرك عذاب كعبر عقوب كعبر طيب أيضا معناها الشيء مركوا فربديهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا حديث أسامة بن زيد ورسولك صلى الله عليه وسلم مركوا كهل ضاعونك إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم ضاعونك هو عذاب رواية كالأساس هذا إن هذا الوجع رجس وعذاب رجس وعذاب حنون كني ضاعونك وعذاب إلهي أوكوها لاقي أمده إذن كهرين وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا ومض لقوا عقابة بأمرك الرلوس ودجي لكن دولك قاربا كغا هري حنونك إساقا ما بابين مربو صوك عيا مرنوا تقيا أبو النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه فإذا وقع بأرض ضعونك هدول دولك دعو فلا تخرجوا منها دولك أو كدع يدي تشوكتي يسنكبحن وإذا سمعتم به في أرض دول كدع هداد مقشانا ومركا أيضا تشوغين فلا تأتوها هوتجين هجلنا ديت كاسي وحديث صحيحين كصوصاره وفايدين يا عذر كداعون كل هذا أسل كي سمركو بني آدم ككب لا بني ومد إلهي عذاب يبقى لجوها لاجي علماء معناها ضاعون كيسكو خلافان وقار وحي ليهن حنون كستو عام وبني آدم كباب يضاعون بالله سأصدرت بقاركود وحي سيان عذر رضا فيروس كان كل بكعية النوعية ذا كلا قدسين أبتيرك كلا قدسين له ابن آدم كباب إنا يقارب وحي سيان أحكامتي ضاعونك لأن علماء ذي القارب وحي كفسران ضاعونك إنه يهي عذر كستو عامة قارن وحي ليه ما عذر خاصة قنشدا صوبحة سيجوني شركة أقبته حديث كنا كاست معنا هذا بوحو تشينيا ضاعون كأنه عذر خاص حديث خاصة قصارون المهم النبي صلى الله عليه وسلم أوفي رسالة سيدا ويعني ولا تعامل ضاعونك عذر رضا نوعا وكلا سوء ولا تعاون وسيدا هذا أدوك ولا تعامل يوه وحلي الحجر الصحي ماشو كد اللعي أنت كتشرتنا إننا صابحين أنت كم قلنا إني سنجلين سأدوك حتى قاك أو مداويني نبي محمد باساء الداوية صلوات ربي وسلام عليه مرة اختربوها يا جزيرة العرب وكفري ولقي علمي قد اخترني بدل ما آخر سنة صلوات ربي وسلام عليه لكن هو وحي الربي واحد وحي الربي ونبي وحكو داويني يا صلوات ربي وسلام عليه طيب تانا وحي تلمانتي ونصوص تاسي تلمامين حنون نذا مصائب أي حنون نذا يعود الردو كم بديهين إن أي كو إيمانيان سببت بني آدم كالذنوب تيسين كو إيمانيان آياتها فرها بدن يكو وكلا سوقح نين كيدي مركب بني آدم دنبي أو قال السبب ومعها مصائب تدعي ساي يا إما قرآن كو جاهل كي هي يا إما وحوي وإنكرسين أمران أحلاهما مر طيب
waxaan tilmaamaynaa hadda masaa'ibtan dhacaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommada uu ku ridayo xikmadda ku jirta maxay tahay waa arrin muhiima inaynu baranno maxay tahay xikamka ku jirta leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala sharciga uu jideeyey axkaamtiisa sharcigana xikam bay ku salaysan tahay afcaashiisuna xikam bay ku salaysan tahay ilahay wax iskama sameeyo soo ma cabad iyo ciyaar ciyaarna wax isagama sameeyo laakiin wax uu sameynaya xikmad buu ku salaysan yahay masaa'ibtan dhacaysa marka cudurrada abaaraha dhulgariirada yani colaadaha masaa'ibtan dhacaysa bini aadamka in badan baabi'inaysa halaagaysaay xikamka ku jira maxay tahay maxaa xikmadoo ku jira ayib ilaahay tabaaraka wa tacaala xikam aad u fara badan ayuu ka leeyahay xikmadaha waxaa ka mida ku jira addoommadu markay kibraan oo qooqaan oo ishalmaamaan in la xusuusiyo inay ilaahay u tadarrucaan haddaan soo marnay lacallahum yatadarracuun walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i waaddaraa maxaa xanuunnada iyo faqriga loogu qabtay lacallahum yatadarracuuna say ilaahay ugu tadarrucaan lianna ilaahay oo laysku miskiiniyo dhulka laysu dhigo la baryo xikmad weyn waaye camal ilaahay jecel yahay baa ka dhashay addoonkiioo la edbiyeyna way ka dhalatay soo xikmad weyn maa laanna haddaan lays edbinin bini aadamku waa kibrayaa waa dhaqaaqayaa wuxuusan ahayn baa ismoodayaa asagoo kibirsanoo cirkaa isla marhaya oo wuxuusana ismoodahaya ayaa waxoogaa xanuun yar lagu qabanaya markaasay xaqiiqadii soo baxaysaa hadduu ilaahay yaqaana gacmuhu taaganay haddii kalena cabaadkiisaa dhammaanaya soo ma cabaadkiisaan lala joogin sidaas daraaddeed lacallahum yatadarracuuna waa xikmo xikmadda labaadii waxa weeye addoommadani inay ilaahay u soo noqdaan oo khaladaadkan keenay masaa'ibtan inay ka soo noqdaan iyadana masaa'ibta way u imaanaysaa walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun say u soo noqdaan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إن أضمد التوبة كينان إلهي أصول نقدا إن بدنوا أيجا كم إذا نويد عدا إن مصيبة أي سبب النقطة إنه إلهي حصوصته أصول نقدا حقرنا يا قصون دات كان كفو قاذي فواحشتا يزندا يقشنك كفو قاذي dhanka kalena daroogada iyo qashinkan ku tagay oo noloshaba ka dhacay ayaa waxaa ku dhacay cudurka la yidhaha aids baa ku dhacay markii aidiskii ku dhacay waana muslim aidiskii markuu ku dhacay ayuu wuxuu malihiisu u batay inuu dhimanayo muxuu sameeyey marka baarkii khamrada ka soo bax zinadii ka soo bax xumaantii ka soo bax masaajidku soo gala ninkii muddu sii noolaayo markiiba ma dhiman salaax iyo hagaag iyo toobad iyo soon iyo salaado iyo wanaag khaatumo wanaagsan addoonka haddii la dayn lahaa oo aan cudurkaa lagu rideen soo xumaanta kuma dhinteen ya cudurkiibaa muxuu u noqday lacallahum yarjicuun inuu u soo noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala masaa'ibtani marka waa soo celin addoommadii la soo celinaya qaaraan soo noqonaynin baa jiro sii kibraya kuwa ilaahay wuxuu kula dhaqmayaa markay sii kibraan sunno leedahay sunnatul istidraaj iyaga marka waa loo sii seeta dheerayn waa la sii lugoyn kadibna waa laga takhalusay ayib marka xikmadda labaadii waxa weeyaan addoommadu inay soo noqdaan xikmadda saddexaadii waxa weeye in ilaahay tabaaraka wa tacaala cadowgiisa iyo gaalada inuu ku ciqaabo ayadana waxaa tilmaamaya aayado badan oo qur-aanka ka mid a markuu ilaahay ummado dhowra ka soo hadlay suuratu alcankabuut alla wuxuu yidhi fakullan akhadnaa bidanbihi ummadahaas mid walba waanu qabannay dembigiisa sababtiisaana u qabannay gaalnimo iyo ilxaad iyo dembi ay galeen baa loo qabtay faminhum man arsalnaa calayhi xaasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إلهي وحكوها لاقي ضبيل قرور حوتا بالغو بابي قال وحلقوها لاقي قيلو
qaar dhulka la gooyay qaar biya ilaahay ku diray oo biya halaagay kulligood laakiin maxay sababsadeen fa kullan akhadna bidambihi dunubay galeen waay markaas ilaahay wuxuu ka dambeysiyay wama kana allah liyadlimahum alla muusan ahaanin adoomadiisa mid dulminaya walakin kanu anfusahum yadlimun ayaga naftooda dulmiyay khaladaadkay galeen baa loo baabi'iyay xadiidkii aynu hadda soo marnay nabigu markuu ka hadlayay daacuunka wuxuu yidhi soo ma ahayn ina hada alwabaa'a rijzun ahlaka allahu bihi alumama qablakum cadaab buu ahaa daacuunku ummado idinka horreeyay ilaahay ku halaagoo ku baabi'iyey xanuunku marka waa ciquubo gaalada ilahay waa kaga argoosanaya waa ku cadaabaya waa ku ciqaabaya waa ku laynaya qur-aankii sunnadaa sheegaya soo saas ma qur-aankii sunnadii baa sidaa u sharxaya annaga dad muslimiin oo qur-aan iyo sunno rumaysan baanu nahay mulxidiin ma lihin diin laawayaal ah ayib xikamka ku jira waxaa ka mid a masaa'ibta addoommada ku dhacaysa in addoommada lagaga celiyo kibirka iyo xadgudubka in noloshooda laga dhigo nolol waxoogaa isu dheelitiranoo xaggana ayna u gudbin xaggana aysan u dhicin maxaa yeelay haddii un barwaaqo lagu sii daayo oo masaa'ibta laga ilaaliyo way kibrayaan wayna qooqayaan waana dabeecada ilaahaygii abuurtay baa garanaya inay sidaa yihiin saas daraaddeed baa alla wuxuu yidhi walow basata allahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi walakin yunazilu biqadarin maa yashaa innahu bicibaadihi khabiirun basiir ilaahay hadduu addoommadiisa risqiga u fidin lahaa sanad walba barwaaqo looga dhigi lahaa xooluhu u dhali lahaayeen beeruhu u bixi lahaayeen barwaaqo un loo dayn lahaa way qooqi lahaayeen buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala way kibri lahaayeen laakiin ilaahay wuxuu soo dejinayo qadarkuu rabuu soo dejinayaa sanad baa la barwaaqaynayaa xoolihii baa u tarmaya beerihii baa baxaya waa la barwaaqoobayaa markay xirkaa isla marayaan oo ay waxoogaa ama kibreen ama kibir galay ayaa sanadka dambe qiyaastii baa la yaraynayaa xoolihii baa la baabi'inayaa soo ma dadkii baa dhimanaya waa la soo noqonayaa bini aadanka miskiinnimadiisa la tusaya soo ma marka zajri baa ku jira waxaa ku jira mustaqbalka markaad aragto masaa'ibtan dhacaysa inay dunuub ku imaanayso inuu ruuxu iska ilaaliyo soo ma war hooy waana qisaska qur-aanka kariimka ah marka laynooga warramayo ummadihii horii wixii ku dhacay cibarkii xikamka ku jira waxaa ka mid a wixii iyaga lagu halaagay iska ilaaliya marka waa darsi islaaliya ayib kuwaasi waa xikam caam ah waxaa ku jira xikmado khaasa oo dadka muslimiinta ah markay masaa'ibtu ku dhacdo soo hadda nimankii aan soo sheegnay warkooda kuma jirin hadduu yahay waxaan wax ilaahay soo diray muxuu muslimiinta ugu dhacay soo ma oo maxaa xaramkii iyo dadkii cibaadaysanaya loogu salliday soo warkooda saa ka mid ma ahayn marka gaalada ilaahay uu ku sallidayo masaa'ibta iyo markuu muslimiinta ku sallidayo way kala duwan tahay meelaha qaarkoodna way wadaagayaan muslimiinta mu'miniintuna waxbay kaga duwan yihiin gaalada marka lagu sallidayo mu'miniinta musiibo ha ahaato cadaab ha ahaado cuquubo ha ahaato laakiin dhanka kale waxaa ku jirta masaalix waaweyn baa ku jirta oo iyaga ugu jirta waxaa ka mid a maalan ruuxa muslimka markay musiibadu ku dhacdee mu'minka ah dembi dhaaf baa ugu jira nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam maa yusiibu almu'mina min wasabin walaa nasabin walaa hammin walaa xasanin walaa ghammin walaa adaa xata ashawka yushaakuha ilaa kafara allahu biha min khataayaahu mu'minka musiiba kuma dhacdo dhib rafaad hammi murug walbahaar dhib kale xataa qodaxda mudaysana ha noqotee ilaa ilaahay dunuubtiisu ku dhaafaa waa xadiid muttafaqa soo in lagu dembi dhaaf ma jecel waxaa laga yaabaa acmaashaadu inay keeni weydo dembi dhaaf istighfaartaadu inay keeni weydo dembi dhaaf ama lagu waafajin waayo alla inuu dembi dhaaf kaaga dhigo masaa'ibtan kugu dhacaysa ayib laba mid ka fiican marka dembigaaga in lagu daayo lagugu cadaabo iyo waxoogaa cudur iyo musiibo intay kuu soo hormartay adduunyada in ilaahay kuugu dhaafo kee roon waata maslaxadu marka laga yaabo adiga inaynu kuu muuqan ayib axaadiista macnaha tilmaamaysa waa xadiid mutawaatir awaan
إن مصائب تدم بلاف كنا المؤمنين تا ومتواتر حديث تاس طيب وحكم ذا رفع الدرجات مؤمن كمركي مصيبته كل عضو درجات بوله كرو قاده لكن درجات كعلماء قار وحي ليهن وحي كدلتا مركو مصيبته كصبرو مصيبتي waa kugu dhacday masalada dambidaafku waa mas'ala kale laakiin in darajaad aad ka hesho thawaab ka hesho sabir bay u baahan tahay markaad ku sabirto marka abaalna waad ka heli darajaadna waa lagu kor lagu qaadi waxa ku tusay isagana xadiis abi hurayra nabigu sallallahu alayhi wasallam inna ar-rajula takunu lahu al-manzilatu 'inda Allah fama yablughuha bi'amalin hatta fala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yublighahu dhalika ibn hibban ya hakim غيركود baa soo saaray ruux waxa jira ilaahi manzila sare jannada uga qoray darajo sare loo qoray amalka uu sameeyayna ee wanaagsanna darajada kuma gaari karo alla agtiisana darajo sare uga qoran markaasuu ilaahay imtixaanaya musaa'ib ku ridaya si darajadaas uu gaaro ya salaadaadi iyo soonkaaga iyo cibaadaadkaaga waxay ku gaarsiin waayeen meeshii ilaahay ku qoray buu ku gaarsiin waayeen si ilaahay ku gaarsiiyo marka musaa'ib kugu salidaya si darajada aad u gaadho marka darajaadna muuminiintu waa ku helaan ilaahay agtiisa tabaaraka wa taala waxa kamida ilaahay jannadiisa ruux nadiif ruuxan ahayn ma galo sidaas daraadeed musaa'ibtu muuminiinta marka la fiiriyo waa cadaab soo hormaray oo lagaga baajinayo midkii dambe sida waxa tilmaamaya xadiis abi hurayra nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux xanuunsanayo booqday abu hurayra la socday ninka xanuun adag baa ruuxa haya markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam abshir bisharaysa buu ku yiri ninkii xanuunsanay fa inna allaha yaqulu hiya nari usallituha ala abdi almu'min fi dunya xanuunkani waa naartaydi adoonkayga mu'minkaanan adduunka ku sallidaya litakuna hadhahu min an-nar fi al-akhirah deeftii naarta aakhira uu kulaha si adduunka ugu qaato aakhira aanan u cadaabin ayaa naartaydii adduunka kuugu soo hormarinaa marka xanuunkan u adkayso qandhadan iyo rafaadkan iyo cuduradan iyo u dulqaado wax ka weyn baa ku jira maslaxa ka weyn baa kuugu jirtay in cadaab aakhira lagu geliyo soo marnaanto xanuunkan yarkay adduunka saas waa طيب احمد بن ماجه الترمذي غير كود باصوصر حديث صحيح وحاسو دو waxa ka muhiimsan xanuunka ruuxa muuminka khaasatan xanuunada halista haduu u dhinto waa shahaado wuxuu la darajo noqonaya sida ruuxa lagu dilay macrakada dagaalka gaalada ruuxa lagu dilay oo kale ayaduna soo maslaxa weyn ma waa farbada cudurada halista marka waa badan yihiin ee shahaadada lagu qaato waxa kamid ah nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxi daacuun u dhinta waa shahiid ruux calool shuban u dhinta ya ali jire kaloramiyo شو على الشبن روحي أردن توا شهيد روحي بيه دلان وبيه كردن توا شهيد روحي ميلي كدن تو غوريبا كدومي دسما كدومي و كردن توا شهيد روحا معركه الدغالك لوgu dilay waa shahiid islaanta ilmaha ku dhimatay iyadoo foolanaysa dhimatay ilmihi baa sabab noqday oo dhimatay fooshi ayaduna waa shahiid bu nabi sallallahu alayhi wasallam ama nifaaskeedii bay u dhimatay طيب ruuxa dab ku dhacay dab baa dilay waa shahiid bu nabi sallallahu alayhi wasallam cudur dhinaca gala wadaatu jambi leeyahay ruuxii u dhinta waa shahiid bu nabi sallallahu alayhi wasallam cudurka qaaxada leeyahay ruuxii u dhinta waa shahiid bu nabi sallallahu alayhi wasallam ya ويتخذ منكم شهداء الله مركو كورمي دغالك او جيديه غالدا ان لا دغالمو مصلحدي حكمك كجيره مركو الله كورمي وحو يري حكمته waxa kamida inuu adoomadiisa ka sameeysto qaar shuhadaa sooma inay adoomadiisa shuhada ka soo baxaan alla dartii u shahiiday agtiisana darajaad ku yeesha ayaa kamida xikmka ku jira xanuunada laakiin dadka عقل قاب كام أقونت لهين أين قاري كرينين معاني ذا يحكم كأسجا سداس درادة بعد قرن كرتان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغير النبي يقولها من يريد الله به خيرا يصيب منه روحوا إلهي خير للربو وأصيبه يا
حديث ابن حبان كوي با وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم نبا ويمن xoog badan oo geel jiro oo malaha waligi ba xanuunsan markaasuu nabi wuxuu ku yiri imu milda ma taqaan oo mildam waa qandhada war qandho ma taqaan maya waliga maadan qandhanin maana qandhanin waliga xanuun kuma qaban ima qaban ninkii markuu dhaqaaqay ayaa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxii doonaya nin ahli naar inuu arko ninka fiiriyo nabi sallallahu alayhi wasallam bimaana waxa way hadaaba lagu qabanin ba ya gaar ahaan aad saaxiib macsiyato dunuubna leedahay hadana xanuunka laga ilaaliyo gadaal bay jirtaa way macna sooma dhici karta inuu ilaahay ku cafiyo dhici karta in lagu ciqaabo wallahu a'lam macnahaas hadana waxa ku iimaanaya xadiiska taqaaneen nabiga sallallahu alayhi wasallam ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal dadka ugu imtixaan badan ee ilaahay imtixaano waa nabiyada saalixiinta ku xiga sida loo kala fiican yahay baa imtixaanku dadka ugu kala badan yahay ruux walba waxa la imtixaanaya qadarka diintiisu dhan tahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam imtixaankaasi waa imtixaanka masaa'ibta uu ilaahay doonayo adoomadiisa inuu ku darajeeyo ugu dambi dhaafo ku darajeeyo wax ku siiyo Soomaalitaan tayib xikamkaas marka ku jira arinta xigta waxay tahay u baahan inaynu iyaduna tilmaano mowqifka ruuxa muslimka looga baahan yahay musiibadu markay dhacdo maxay tahay waxa waajib inaad ku sabirto سأستردد أي إلهي وحول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلهي قلبي قاقا هنون انت وحالك وضع إنه صبر كوافتشيه صبر كوحا كسي في عن وحي علم ذي لهذان الرضا إن هذا المصيبة دي كوكود عن الرالي كنقط وحا كسي في عن مصيبة كوكود عن إنها تكشكر دو وزيد درجة علماء waxay dhahdaan sabirka waajiba labadan kale waa mustahab nadraali ku noqoto inaad ka shukrido waxa laga yaabaa inaad la yaabantiin oo leedihiin oo musiibo ugu dhacday seen raali ugu noqoni kaba daran ee musiibo ugu dhacday seen uga shukrini waa sharxi lahayn laakiin waqtigan loo saamaxay munaasabaad kale insha Allah taala laana dhinac markaad ka fiiriso masaa'ibtani ni'am bay noqoni ilaahay shar maxdiya ma abuuro الله تبارك وتعالى مركو أدومديسا مصيبة كوكينو مصيبة داسي مسلمين مؤمنين شك ملها مصلحة دا كوشرتا كوين ديب كان مصيبة دا كوشرتا هذه مركز سيد كوي لكرتا كود دريمي كرتا ومثلا شرح أبا وحلو باهي يسيدو كلا إني نكوى جهنو حانون دا أما مصائبتا وحلي لهذا التوكل على الله إنا لله تعالى سارنا سأستردد أرجع فرح بدن يا نحيدنتن يا أرض كان يا كلا عرب كان يا لقطة لسكو سلامة هي بهالشيء هاي وحن أدونك كتشر بهالشيء من سوبر قاربة ضد كينا الانتاب مقرك وساريهين وحاس الشقم من ما صوما وعقل الدوان تحدر كوتو قدرنا سيحنون كل لوجة تحدري سيل دا ولا وجرا من الاستداوين كانوا مسألة كله لكن أدون لوجو سوق قاربة يا جيري هرت انت هنا النقط وبنفتك عاد عضبة صح ما إلهي تلا سارو وحن إلهي عدو قلت لقليب أصيبي عدو سن قلت لقلينا أصيبي مايو عدو أصيبي أنا ويسي قرنتهي ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ومبدئي أنا كصورني الإيمان بالقضاء والقدر طيب تام عليه ذم هيا لقى فهمين حنون كاني هل يسود يبو يعني وحوي محوها هاي يعني لقادنين إجراءات كي بروسيس كالسكو إلى لنا يعني لقادنين ما لكن أدون كمؤمن كإلهي بكحرين قلبي يسن إلهي بكحرين طيب غضب كحجين دون إن أنت المان وحكت المان وحوي هاي حدي ودم بيجو كوي مت وحنو كذا مصيبة ده يعذر ردي مصائبته حدي الذنوب لقلي كتمت أما قال الدم بأي قش وقال لي ما أما ضد مسلمين الدم بأي قلين بمصيبة كتمت كوا أن دم بلهين محو أقول عيا سؤال وين والصالحين تيدتك دين توتاقناي علماء يدتك زهاد يدتك أهل الخير كابو عذرك وقول عيا سيبوا الدم بكوي سيبوا الدم بأقويمي سيبوا الدم بكوكينه سؤال بيت صما تانا وحوي جواب تيدو يدنا ويعده قرآن الكريم كنا وعدي حديث النبي كنا وعدي صلى الله عليه وسلم الله وحوي نوشيغي markay masaa'ibtii fitanku yimaadaan
intii sababta u ahayd kaliya inuusan ku ekaanaynin in kalena uu gaari doono ayadaasi wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamuu minkum khaassa waxaad iska jirtaan fitno intii dulmiga samaysay kaliya aan ku ekaan doonin ee markay dhalato dadka wada camimi doonto طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسي عديسي حديث زينب بنت جحش با كميد البخاري ومسلم سو ساري النبي صلى الله عليه وسلم وحي تري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا النبي قال اسو غلي اسو ارغغخسن زينب اسو غلي او له لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا اله الا الله عرب هلاك با اسغنادي شر دو حقيسا هلاك uga sugnaaday فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ابو النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج تدكي كؤكا عليني يا انت سوك لغا فري ابو النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا سو فكينا بس واحد طيب مركز زينب وحي كتر يا رسول الله ان نهلك وفينا الصالحون رسولك الله يوميانا لهلاقي انغو ددكي صالحين تو وناغسنا نغو دخجيران النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر فيكم القبث ها idinko dadkii wanaagsanaa idin dhex joogan baa la idin halaagi hadii dhexdiina xumaantu ku badato nabiga sallallahu alayhi wasallam Soomaaliya xumaantan badatay waxa ka dhalanaya musiibadii markay dhalatana intii xumaanta sameysay ku ekaan mayse in kalena way gaari طيب وما حيساسي ku dhacday de ilaahay baa qadaray ma ilaahay baa la doodi ilaahayow intan kale maxaad ugu riday adu ma dhigi kartaa haddana hadda su'aasha keentana jawaab jirto xikmadda wala garanaya wala caday waxa kamid ah xadiista macnaha cadeynaysa xadiisu Aisha Bukhari Muslim baa soo saaray sidoo kale rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'ba ciidan baa Ka'bada ku duuli doona fa idha kanu bi bayda' min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ciidankii Ka'bada duulaanka ku sii aha meel banaan oo dhexda markay sii marayaan baa koodii hore iyo kooda dambe dhulka la goynay wala wada halaagi عائشة واحد الرسول قال وحن كوري كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم سيل ليس لها لاقيا إيجو أي كود احتران ضد كودي إسك السوق شوكتها إيه ضدان أيجا بكم ده هاي رواية كلام حيلا ده هاي كوالله سوق قصبي بالله صعد يعني قار جد كي بكذا صعد يعني وح الله صعد وما قرنا يعني كوا سوق إسك شوكين وح الله صعد وما قرنا يعني كوا سي دم بمال وإسك الله صعد صوما dadkaasaa la socda dambi aan lahayn ujeedaday u socdaan aan la wadaagin soo loo wada halaagaya bay tiri nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa aakhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim wa laysa halaagi bu nabigu kullu dhulka la goyn laakiin aakhira marka la gaaro nin walba niyadii uu ku socday baa lagu soo saaray ya ki duulaan u socdayna kacba nin ku duulaya niyadiisi baa lagu soo saaray wala cadaabi ki aan waxba kar warhaynin oo la xadhukan col iyo abaarba moogaha kaasina hidaniyadii uu meesha ku socdo in baa isaga lagu xisaabinaya laakiin adduunka waa la isla halaagu nabiga sallallahu alayhi wasallam Soomaaliyeed waa meesha Soomaalidu yiraahdaan dab munaafiq shiday mu'min baa ku gubta ama muslim baa ku gubta dabku mar hadduu kaco ma muslim iyo mu'min buu kala yaqaanayo munaafiq yani waxan kada sabab waa yeelan kara gaalku sabab waa u noqon kara mu'minka caasiga dambigiisu sabab waa u noqon kara laakiin markuu kaco waxa way wuxuu gaarayaa dad kale uu gaarayaa ilaahay baa sida qadaray dadka kale uu gaarayo iyagu dambi ma lahe miyaa lagu ciqaabay ilaahay baa ku rido ku ibtileeyay laakiin ayaga masaalix baa ugu jirto waa kan soo sharaxnay Sooma waxa lagu ridayaa ayaga masaalix kale ku jirta dana kale to uga fiican inaysan ku dhicin baa iyaga ugu jirta saan soo sharaxnay sidaas daraadeed ayaa waxay jawaab u tahay taasi daacuunkii Umwaas ee saxaabada ku dhacay ee laayay macada ilaahay buu ahaa jawaabteedii meel ya musiibo ilaahay keenay buu ahaa dambi inay ku timidna shaki male laakiin haddana intii ay disho saxaabada iyo mu'miniinta shahaada ku qaateen oo yattakhidha minkum shuhada طيب qodobka xiga iyadana u baahan inaynu waxooga istul taagno waxa weey hadii la yiraahdo waxan ilaahay baa keenay musaayibtan ilaahay baa keenay ilaahay baa adoomadiisa ku saliday iyaga dambigoodana sabab u ah macnaheedu ma waxa weeyaan cudurka halaysu dhiibo
yaan daawo la raadinin yaan laga hortagin dadku ku dhacayaan la daaweynin yaan muxuu ahaayay xajri lagu samaynin oo lamid meel lagu xidhin ma saasa laga wada labada macna miyay kala laazimayaan maya waa musiibo ilaahay keenay haddana waxaa la rabaa bini aadamku inuu qaato asbaabtu kaga hortagi lahaa ama ku daaweyn lahaa taana diinta inoo sheegtay iskama hor imaanayso musiibo ilaahay weeye iyo iska daaweeyo ka hortagoo dhakhaatiirtu baadhis ha sameeyeen dadka jirayna ha la daaweeyo iskama hor imaanayso ninka fahamkiisu iska hor keenay baa wax ka khaldan yihiin laakiin diintu iskama hor keenin sidaas daraaddeed war cudurka ha laga hortago wax walba diinta yaan loo tiirinin iyo ma ahay wadaadadu waxayna garanin bay ka hadlayaan war saxsan ma aha cudurka in ilaahay loo tiiriyo abuurkiisa keenidiisa sabab ahaantana bini aadamkii wuxuu sameeyay loo tiiriyo haddana dhanka kale shariicadu waxayna amraysaa inaan isdaaweyno sooma shariicadii ina tiri waxani waa musiibo ilaahay baa keenay ba haddana waxayna leedahay iska daaweeye sooma waxaa ku tusaya nusuus fara badan qur-aan kariimka oo ku soo aroortay isdaaweyntu sooma طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسي شرح بل النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب داء الدواء برئ بإذن الله عذر كاستداولي عذر كي يداودي سي مركي إسهلان روحوا وعافي ماذا يا لكن محوكوا عافي ماذا يا بإذن الله صمرت إلهي إذن كي سوا هدان داودا يا عذر كانوا إسليهين oo haddana ilaahay uusan idmin kuma daawoobays biidn illah halka waxaynu ka fahanay cudur aan daawo lahayn ilaahay ma soo dejinin hadda soo ma jiraan cudurro fara badan oo bini aadamku daawo u laayahay sooma ma aha inayna daawo lahayn daawo way leeyihiin laakiin bini aadamka jaahilka ah wali looma furin daawooyinkan ay dhakhaatiirta iyo bini aadamku maalinba mid baranayaanna ma aha wax cusub ay sameeyeene waa sir kownka ku jirto ilaahay ku abuuray oo maalinba qayb loo faydayo la tusayo waay haddana maanta intan qaata qaybahan kale ma wali qolo kale la sugaya Soomaali marka cudur aan daawo lahayn ma jire istaaweeya buu nabiga sallallahu alayhi wasallam macnaheedu haddaynu si kale u dhagno waxa weeye musiibadu waa qadar ilaahay daawada la isaga daaweynayna waa qadar ilaahay قدر إلهي بان قدر إلهي قد دفعنينا صوما سأصدرت بان نبي نوحي الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء بما يشاء داود اللفتيد وقدر إلهي داود وقدر مصيبتنا وقدر لبضودنا وحل إني لإسو استعماله تداوي عباد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم أدود ميلي إسداوية إلهي داوة مسودة جنين عذر مسودة جنين إلا داوة أسودة جنين موية حل عذر موية ابن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عذر يا قرنه ها ودأ ضغني وداوة مالي يا مرة دا دقوذ لأن يرنما إن لقوسه حريه صورة قلبه هرين بعضو سيسعوني هل كان عذر موية انت كالورن داوة إلى ذهب النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه طيب معناها سوى معناه بهن إنه أدو فهنو إلهي مقادير تيسا وحوقو تلقالي إن ليسكو دفعيو مدن إستقا كيني وحونا إنوتشي دي تن أنا كيني تن كغهر تقا وفي صدع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركي ودعي سنة داعون كدعي الشام كدعي عمر أيا بحي مدينة كبحي الشام بو آذي إذا مدي رقي هو قاميني أو عبيدة بن الجراح يركم دهين أيام مركب وحي كجهر يمادن أنتو سن شام قارين شام نوحى بابئين يا طاعون عمر ميل حقوقها كذي مركزوه ولا تشذي صحابة دي بل يقول يا رب يقول مهاجرين تي ولا تشذي أنصار يقول يا رب ولا تشذي مسلمة فتح يقول يا رب ركي فتح مكة سو إسلام سو يقول ولا تشذي ورمحان سمينا ciidan kiibu wada khiyaartii saxaabada la socota magalla misoo noqonaa laga tashanay taladii waxay u badatay aan ka noqono oo yeenan gelin markaana wax nasal lama hayo oo nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam Umar waa noqday marka wuxuu go'aansaday inuu noqdo dadkii dhexdoodii buu dhawaaqay wuxuu yiri inni musabbihun ala dhahrin fa asbihu alayhi
بري هدو واقو يبريو قاديد كان صارنا هاي إذن كنا قاديد كي نفولا ونقونا نابل أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وحكويل أفرارا من قدر الله يا عمر عمر وما قدر الله باتكعر رسابه كويل يا دعونك وقدر الله قدر الله ميات كعر ربكويل ورقاس عمر وحويل لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ألا الله وحي كفي إننا أن أذيق أهي إنه هذا كان يكسفه نعم بول نفر من قدر الله إلى قدر الله كان أن كعرر إنه عذر كان إلهي بقدري ماشان وقعرر إنه الصواب تيدنا إلهي بقدري قدر إلهي ما كعرر إنه قدر إلهي نوع عرر إنه مركزه لي مثاله كان وحوير كورن أذوق جيل وته هذا تك صهوبة تك لبطنا عليه ننعوا برواقه ننعنا وأبر هذا دنك برواقة جيلا قد قسيسو سو إلهي قدر كيسمات قد قسين هابوي دنك أبارته هذا دقسيسو دور دكتنا سو قدر إلهي ماذا نقول دكين هابوي محارب تاوي مرك سمارت مرك داود وقدر إلهي إن لبارو وقدر إلهي وإن لبارو وإن للراديو أما الطلال هالنقطية كهرتك هالنقط أما ضدك يكون عدي قابك لو داوين لهالنقط أما كوا أين ولي سو قاعدين سيدي لو حكمين لهالنقط وإلهي ووحل الله دري إن الصمين وكد دال بين آدم ما هو وح شريعة كهر إيمانا يا ما سيقول لي وح شريعة هردين يا كهر إيمانا يا شريعة وفرس أنت مركو عمر السمية كذب وحى يمد وأرنت سيد عبد الرحمن بن عوف وماشى كم مقنع مركز أوحيدي نبي محمد باوحان كم مقلي صلى الله عليه وسلم إسقاله هذا ظل مقشان ضاعون كرعي هجلينا هذا كم مقنتين هجلينا هذا شوكتان هكبحنا إذن كوك عرّي مركو عمر حديث كان النبي كم مقلي اجتهاد كيسي وقان كيسو وافق صوما فحمد الله ثم انصرف إلهي بكم هذا عليي مسألة زي وعضات معنا كدي ابن عمر والله بتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقهي الصحة كاوي مرك وما هذا إسكالله بلا كعي أو وحوجا أنتي إنجليش يرى أخرستين أما دور كتاب يرى لق ميستين محو هاي إلهي بقدير تيسير نصوصتي يوحي اسكور فرها يسكور كينا يا ما فقهي من فهم كصحة الدين تصاص واي إلهي مصائب تيسا يوحيلو أدومدي سأوتشي دي مرنا إسكام هوريمانا يعني شريعة إلهي علمي إسكام هوريماد هذه حقيقة علمي والله والنوع علم النذري اللي يلاهده وحي إلى التهيئة وحي إلى التهيئة بيننا ونقضاه رونا ونقضاه لكن علمي تجريبي بين آدم كؤوت هابتي لاب كل جليه علمي قاسي مرنا قرآن كي يصنع كهرمان مايا لأنه علم إلهي كنوع علم إلهي لابع علمي إلهي لينا إسكام هوريمادان لكن فهم كبين آدم كان مربا إسكور كيني طيب وحان قضب يدنا لو هذا قضب بانك قبحنا إن شاء الله تعالى قار كودو إشكال قليي إلهي إنتو وحكا لبين آدم كوها لاقي لها وهيلي كرا وحكا وويني محو فايرس كان يركع وصوت دري محو إلهي وقبها هين قل يا سوى تشيس وحوض إلهي يحكامتي سوى لقو تشيس سنة وقال لي ما واضح قال لي ما عد واحد هذا مسلم تهينا وقال لي ما عد هذا قال سي أهيدنا ملحدنا إلهي كهنوني ويسكعد هاي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما إلهي آيات كيسي رسول كيسا تكون تشيسيسا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحبها عذر دارنينا مؤمنين هذا هيدين قالوا ذي دينتي واتكبح ذين بإلهي تبارك وتعالى إلهي اللي قوما تشيس دينتي سنة اللي قوما تشيس أحكامتي سنة اللي قوما تشيس آياتي سنة اللي قوما تشيس سومالي ما أنت دبعتها هيستوحى كم ده يعني وحي برتين وحلي هذا كومنتي بيبرتين ومد أن موقتها امتحان كان روحه أها أنت آدم قرال كجلينه وسيده وحلا قراء وحدو بانت آداب تقرال كينات برات وحين نقطة عيد والبين وحسك قرا مركز واحد مدامركو وح تعليقين ينو سن إلهي باركين بقى وحلا صعد وسنشرين ملايين وسن طول صارنين وحدون ويسك قري قار واحد بتشرب كفر برنا يبا قار بقى قرال كبرنا قار بقى حكبرنا قاب كسي وحلون نقديو سيده كومنتي لو سميه قار بقى كبرنا warwaaye he haddaad xataa ku barbaranayso hadal waxoogaa ama iska macquula ama dembi ka imaanayna ku barbaro laakiin inaad halis isgeliso maaha
مسألة إلهي تبارك وتعالى مخلوقات كي سميت ضعيفة محوص ودرسانيا وحي لم يتهي أوكله قل يهيلي إلهي محو كان عذا يبهاش اللي يلادم محايا عارضة محو مثال وقصة ميسانيا وواحد عموه إلهي محو كجواب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سؤال حد ما إلهي محو فيروس كصوت رسالة يا محو حيوان كيركا كمان ركاد قد كيف بتقول عذيبة وحب إلهي يقول لك لو حيالها يركع كان عذي مثال ذو الصمين وحيالها ضمادة قصة اللي ذي هذه جو كلا إن لقول ميوه وحابت كل عذيبة والله يضل به كثيرا إن بدن بو إلهي كل منيه وكوا ساء أجلس يوكله ويهدي به كثيرا إن بدن إلهي وكوها نونينيا ووحي قرنيا إن حكمة ربي كتشرت أما هفهمان أما يسفهم مد لبعض إيه هدي إلهي أدومدي سمرودي كصدر الله صومين دهن مرودي ومركب ربو نجح حق بدنا صوما كبيرانيين تين مرودي لوجو صدره إن فيروس ير لوجو صدره كيف حكمة دولو يا فيروس ير لوجو صدره وأدون كيو خل جليو ومريكان يا يا عالم كيو كعوفريستو أول الرفاضو تاسع حكمة دين لفهمه ولو صومارت حكمة الربيين لفهمه تاسع ولو مركا حكمة داسا كتشرت إلهينا وحو دونو درسان تبارك وتعالى وحاجز قلنا يانا بتشيره مسألة كاليتو مهمة باندونا يانا هلكا قليو مصائبة إلهي تبارك وتعالى هي مقادير تبلعية لو مدلي شدو الدم بقاقي عيبت هذا لكن مقادير تهدادا الدم بكلها هين ولا دلي شده سيداس دراديد وحي الدم بأتوض بوبايه وحي مصيبة هذا الدم بكلها هين الصبر بوبايه حتى المامز آيات القرآن كإله فاصبر إن وعد الله حق وحي كوكو يمد صبر محال قدم بيسيه واستغفر لذنبك محال الدنيا ذنبك قاينا ترى إلهي بقدري وردنبك كتوبت كان إلهي بيقول قدري محال قربته وروحني واخلدنيه إلهي بقدري وردتك حد مني إلهي بقدري خلط كاغا إن أدود دليشته إلهي بقدر سحما صوما ساس تردد بوحلي هذا قدرك وحلو حجيستا مصائبتا اللي ما حجيستا معايبتا وعيبتا هذا هو صوماليدنا وماشي ترى هذا الدقن قدر تقانا إيه لقى ما كرهنا وحي خلط ده هذا يقول ترى هذا قدر إلهي واحد صحنا ما حتى عقلا موسى صح وهاي هدي مقاديرتا أي نقطة خلادات كإن لود اللي شذ الروح يسكت دفاعنا عد والباقلي هذيك اللفت هذا حولها أنت لقاته أول لو قدعه أول لو قديله أول لو قدرباحه وحكست لو قصة به أيها وعلولة الصبر ده ومقاديره سوساز ما هذا رح سؤالي ومقاديره بالقولة مركب مقاديرتا هل كان لو مد اللي شذ عيبت هذا كتوبة كان قاضنا مسؤولية ده سمارت لكن دنك وحي آذان سبب لهين والدم بيجي آذان لهين صح كصبر وأنا دليشان كرتها إسلام مسألة هذا وحكوا إمارة حديث كي دحمري قصة دحمرت النبي موسى يا نبي آدم نبي موسى نبي آدم بعوضها الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موسى وحكوا آدم هذيك واحد تهنينك خلت كيسو جنة نقص صار خلت أتقشي بعد جنة نقص صار مركز آدم وحكوا موسى إلهي بقدرته هذا الكيسير رسالات كيسو قدرته ما واحد يقول أيضاً يقول هذا قال الله مسا أمر إلهي قدري أنت لا يأبورن أنت إلهي بيأبورن وح قدرنا مياد موسى ويقول أيوه هاي ستا النبي يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ولا قدر هلا مرك آدم حجيبه وحجي سنة يا ما خلت كي يدم بيقول قليب وحجي سنة يا مايا أيوه حليه هاي دم بيجي إني كتلته الضمادة إن لقصه صار بني آدم كتشنده دول كلا كانوا قدر إلهي به أنا جيت كيف أنا خلط بوها خلط كيف هالكاسة وأنا كتوبت كان مركب واحد إلهي قدري آدم وحاجة موسى هيقول آذين ساسوي معنا فحديث صحيحة
وحصو صاري بخاري ومسلم قضبك قدام بين كجب حين وحويه علماء شريعة ده هي علماء علمي عافماتك أما علماء فلك أما علماء مصائب تي حوادث تكون تخصصتي علماء إيه ده سيدة دبا محيك لليه قالوا وصل بتقول بس هدي قيبت هذا كهذا شو واحد تقانه ما حد جذب يجهل به مايا علماء أنه كوا هذا مثل حنونك علماء عافماتك نوعيده ذاك القدس مركي كهالليان مصائبتنا من مصيبة عذر كهالليان دنكي واه الله وحويان عذر كان محاكياني محاس سببي صوبتي الرادينية بكتيريا طيب فيروس محو كدش صوما أدو أما فيدمير بو كدش شيء أما مص بو كدش شيء أما معمل إيه اللاب لغو سمين هيبو كفا كذا فيروس كني أما محو هاي ميجا دون توتيري أما الضوفار بو كي يمد أما الشمبراء دليل صوما صوبتي الرادينية صوبتي مركي هلاننا waxay doonayaan inay xanuunkan u sii abtiriyaan haduu qaybo kala gadsan leeyahay oo ay yaani wax weeye ay u sii bahbah u sii kala sameeyaan fayraskan hadda waa bah gooniye Soomaalida fayrasyadu waa barbadin Sooma waa bah gooniye markaas haddana waxay daraasaynayaan bini aadanka markuu ku dhaco saameyntu ku yeesho xagee uu ka saameeyaa kan hadda wax weeye corona oo kaleeto sanbabku ku dhacaya Sooma ruuxa neefti baa ku dhagaysa qandhu keenaya waa qufacaya beer ku qabanaya Sooma kadib jirkii wuxuu bilaabayaa inuu isdifaac yiraahdo isdifaaci jirka wuxuu soo saarayaa awood xoog badan buu soo saarayaa oo cadawgan iska celi buu leeyahay difaaca xoog badan jirka ka imaanaya laftiisa dib uu la imaanaya waxaas waa waxay dhaqaatiirtu qoreen anu dhakhtar may laakiin waxa jira culumta qayba akhriska lagu fahmi karo iyo qaybo hoose oo ninkii ku takhasusay uu garan karo Sooma tayib inahaas waa inaha marka kadibna dhaqaatiirtu markay fahmaan sababta iyo xanuunkan bini'aadamku soo saameeyo kadib baa waxay raadinayaan daawadiisa maxaa laga hortagi karaa maxaa lagu daaweyn karaa dhaqaatiirta shaqadooda taawa shaqada noocaas in looga dambeeyana way tahay ayaga takhasus kale حتى علماء الشريعة مركي دونا يا برنامج كنوع عسو كلا وين دخاتير تأهل كيسة وقدم بيان وصح صوما لكن دخاتيرتو كوا مسلم والدين تيقانا مويه ميي كو شيء كران حنون كان إلهي باكيني حنون كان إلهي على قدر كدحية يا إسكالي إيه علماء إسكالي صوما حنون كان iyo bini aadamka khaladaadkiisa calaaqada ka dhaxaysa dambiyada bini aadamku galayo iyo xanuunkan calaaqada ka dhaxaysa yaa iska leh ma dhaqaatiir baa ku sheegaysa dhaqaatiir baa waxay ku leedahay AIDS-ku wuxuu ka dhashay dambi ilaahay laga galay zina faaftay allahumma inuu dhakhtarku muslim yahay oo diinta garanaya mooyee tayib cudurka iyo bini aadamka calaaqada ka dhaxaysa dambiyada bini aadamka iyo masaa'ibtana culimada shariicada iska leh عذر كان الله كاني الله حكينا وتشددي حكم ككتير العدين تهذا علماء ده إسكاله دخاتيرتم الله اللهم دخاتيرتي مسلمين تهذا علماء ده أها مركي وحكي قرآن جوانب تهوي عديان ويكهلا أما مرضى بقى علمك عافيماتك هي علوم تكلم مادية هي تدين تلا كلا صاري نين كان دخترك وحكو شرحي كراء وحيالا مادية أنت كبضنا مرة فكره أما ما بقرنايو أما وابي إنكرسيه أنا كمرك جوانبتي أن دخاتير تكهل لكرين هذا علماء تكهلان ما دخاتير تهو شو دي بيفرق شده ما هو لنا الحين بيقالين بس هو شو دي ولا بجانب واحد دخاتير تنقيب إليهن علماء الشريعة تنقيب إليه قالوا والله نقيب تودا كهل ليس نيكي قيبتي سكهل لمرك اللي هذا هو شيء دخاتير تدقش بكتيريا يدني فيروس كان ركبة إسقالي سيقول شان يجا قرناي هذا إلهي بكي مدياكو يده حاجات كانت وراد روكا قيبت أنا كأقان سجى قيبت أنا دكتور كأقان نك علماء كيقان نك شرعة يقان كيقان قيبتي سوق الله كان قيبتي سوق الديني سيدا سوي معنا بل وحقيقة دخاتيرتو إن يسن شيء كرينين
waxyaalo badan oo shariicadu sheegtay oo cudurradan sabab u ah laakiin iyagu ayna gaari karin waxa kamida midalan nabiga waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri fanaa'u ummati bit-ta'n wat-ta'un ummadayda waxa baabi inay la halaagsamayso waa durid iyo taa'un markaas waxa rasuulka ilaahay ta'niga duridda garanay taa'unku muxuu yahay wuxuu yiri waa uqubo wakhzu a'daa'ikum min al-jinni wuxuu ka iimaanaya durid jinku uu idin duray buu ka iimaanaya jimba ku duray jinkii ku duray ba waxa ka dhashay maxay taa'un dhakhtarkani ma garan kara calaaqada ka dhaxaysa jinka iyo cudurka dhakhtarku ma garan kara calaaqada ka dhaxaysa sixirka iyo xanuunka dhakhtarku ma garan kara calaaqada ka dhaxaysa jinka iyo xanuunka dhakhtarku ma garan kara isha bini aadanka ilaysiga iyo calaaqada ka dhaxaysa maxay iyo xanuunka ma sheegi karaan qaybaha sharaa'icda ka hadashay diinta ka hadashay jinka bini aadanka saameyntu ku leeyahay sixirka saameyntu ku leeyahay ishu saameentay ku leedahay muxuu ahaayay waxyaalaha iyo caafimaadka saameentay ku leeyihiin sida loola tacaaliyo qaabka loo daaweeyana maadaama ayna cudurkii garanaynin iyadana ma garanayaan ruuxi way baarayaan qalab bay gelinayaan ajisay gelinayaan dhinac ka baarayaan taxaliil bay ku sameeyaan waxay leeyihiin ruuxan annaga waa noofayo yahay adeer meel kale la aad ma garan karo waa in wadaad loo keeno oo la quraan saar soma waa in adkaar lagu akhriyo soma waa in ilaahay loo baryo wareede baalkan dhakhtar baa iska laha nagu quuqinine qaybtanadaan ka hadalno soma dhakhaatiirta qaybtooda waa u ogolahay waana u daynaynaa inay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin annagana qayb baan xaq u leenahay qaybtaan u leenahay wax weeyaan inay culimadu ka hadlaan shariicadu maxay ka tiri cudurkan cudurro la midka masaa'ibka maxay ka tiri waxa kamida midalan fuqahada qaar kamida shaafiiciyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin masaa'ibtan oo kale markay dhacaan oo cudurrada caamka dhacaan masaajidaha laga qunuudo dhakhtar ma na dhahayo masaajidka qunuuda ma dhahayo asbaabta cudurrada lagu rafciyayna kamid tahay masaa'ibta asbaabta lagu rafciya kamid ducada laana waxay leeyihiin waxay kamid tahay xawaadista caamka ah oo qunuudka asal ahaan loo jiray salaadaha in la qunuudo marka yaani waxaan ka wadaa sax in takhasuska dad kale loo daayo laakiin takhasuskii baa laba kala ah midka maadiga ana dhakhaatiirta iska leh midka macnawiga ah iyo calaaqada cudurrada iyo masaa'ibta iyo ilaahay ka dhaxaysa afcaashiisa iyo siday u saameynayso asbaabta keento bini aadanka dunuubtiisa daaweynta lafteeda qaybo kamida oo qaybaha shariicadu tilmaantay ah muxuu ahaayay asbaabta wahaakada qaybahaasi waa qaybahan sharaxnay sidaas daraadeed fahamkaas baa wuxuu yahay fahamka saxda ah iyo in masaa'ibta dhacaysa qaabka loo fahmo wixii la badbaadin karan la badbaadiyo la daaweeyo la baaro laga hortago laakiin haddana maca dalika ma diidayso inay tahay wax musiibo ilaahay ka hortagiina waxaa kamida in ilaahay la baryo tabaaraka wa tacaala dunuubtana laga noqdo dambiyada laga laabto ilaahay loo laabto taasaa kamida waxaan ku khatimayaa ku gabagabaynayaa kuwa ayagu ilaahay caynaya ee diinta caynaya ee jeesjeesaya ee ku xadgudbaya ee qoraalada noocaasa samaynaya keliyata waxaan dhihi karnaa ilaahay idin soo hanuuniyo ilaahay ha idin soo hanuuniyo haddaan idiin heli karno maanta waa idin hanuunin lahay laakiin man yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an waxaanse idin leeyahay kelimaadka aad qoraysaan iyo sidaad u hadlaysaan iyo qaabka aad u hadlaysaan iyo maagiddaad ilaahay maagaysaan iyo jeesjeeska aad jeesjeesaysaan waxaad ogaataan ilaahayna dhibi maysaan cid kalena dhibi maysaan waxa ay ku soo noqon doontana waa idinka haddii ilaahay ka baqa laydin yidhi ood sii madax adeegtaanna وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم كوا مرك إلهي كبق الليلة وبسيكي ويكسي درامبا الله محيري فحسبه جهنم وحا إذن سوغيسا إذن كافين دونتا هدي وعد إذن كافين واي وانا إذن كافين واي إلهي داية ورنبت قلية وردينت النبت قلية ور إلهي آيات كيس النبت قلية هدي اللي إذن كري واي أود كبرتان وآد سيمد حضيقتان فحسبه جهنم ميل با إذن سوغيسا مرك إلهي الله قبقو
إلهينا تبارك وتعالى دينتي صحيح حفظيه عذردا إيا مصائبتنا إلهي أمدها كرفعي إلهي تبارك وتعالى إنتو سنقرد إنها كإلاليو إنتو قرد عين إلهي تبارك وتعالى كعافيو إلهينا تبارك وتعالى هنا قسم التبحية هنا إنك بدباديو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم